dabcan halkan kama jiro masayr oo waa raaliyoyin reerkooda dhaqanaya. Sida naloo sheegay, shilalka geedaha inta badan waa iska caadi oo maalin kasta waxa ay la kulmaan shilal badan iyo qaar ka mid ah xubnaha qabiilka oo halkan ka soo dhaca, walow ay yihiin kuwa ku tababartay sida daanyeerkii. Gurigan ayaan fuuli doonaa waana ilaa 5 mitir, waana fudud yahay marka loo eego kuwa 50 mitir ah. Qabiilka Karawaygu kuma xisaabtamaan waqtiga, saacadaha iyo maalmaha, waxa ayna waqtigooda ku ogaadaan xilliyada sida dayaxa, roobka, qorraxda iyo imaanshiyaha qaar ka mid ah shimbiraha. Waxaanu weydiinay sida ay ku doortaan geedka laga dhiso guryaha. Waxa ayna noo sheegeen inay raadiyaan geedka ugu adkaysiga badan, waxa ayna qaadataa ilaa 3 sano in la dhiso guri dhammaystiran oo ka kooban ilaa 50 mitir oo xagga sare ah. Guryaha geedaha laga dhiso dhab ahaantii ma aha kuwa adkaysi badan, maadaama cadaadiska hawada uu aad halkani